maalintii toddobaad ee sanadkii labaad ee dagaalka Gaza ciidamada Israa'iil waxay xoojiyeen gacan ku haynta waqooyiga marinka Gaza iyagoo ka godoomiyay magaalada Gaza ee dhulkaasi iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gaadiidka dagaalka. Godoominta Jabaaliya, Beit Hanuun iyo Beit Lahiya ayaa sii socotay dagaalaad iyadoo loo diyaar garoobayo barakacinta dadka rayidka sida uu qabo waxa loo yaqaano qorshaha guud. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale qarxiyay daraasiin guryo ah oo ku yaala xerada Jabaaliya. Qaraxaasi wuxuu sababay dhimasho iyo dhaawac badan. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaafaysa 285 sideedii maalmood ee la soo dhaafay, halka ciidamada ay ka hor istaagsan yihiin kooxaha ambalaasta inay soo saaraan meydka 75 ruux oo weli ku hoos jira burburka gudaha Lubnaan. Wargeyska Haaretz ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku dhawaaqeen dhowr aag oo ka tirsan waqooyiga Galilees inay xireen aagga militariga. Iftiinka xiisadaha xuduudaha ayaa sii kordhaya. Xisbullah waxa ay tilmaantay in dagaalyahanadooda ay isku dhaceen cutubyo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo isku dayay inay gudaha u galaan tuulada Raamiya ee ku taala xadka. Tanina waa iska hor imaada cusub oo ka dhex aloosan xiisadaha taagan tan iyo markii uu qarxay dagaalka sanad ka hor. Sidaasi waxaa ku dhawaaqay ciidamada UNIFIL ee qaramada midoobay in 3 meelood meel askarteeda lagu dhaawacay iska hor imaadka kadib markii ay soo shaac baxday fariisimo ay ku leedahay koonfurta Lubnaan ayaa rasaas lagu furay. wixii warar ah ee soo kordho halkan ayaa kala socon doontaan.